maxamuud cali saleebaan ramaax xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ucud oo maanta warfidyenada kula hadlay xarunta dhexe xisbiga ucud uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay inay ka gaabisay inay wax ka qabato amniga dalka kalena waxa uu sheegay in habeennimadii xalay ahayd weerar lagu soo qaaday saldhig ku yaala magaalada Boorama runtii waa nasiib darro in maanta la yiraahdo waxa soo weeraray jabhad baa soo weerartay wabar la yiraahdo waxa qabaa runtii inay arrin aad iyo aad u foolxun tahay oo dabeeca iyo jileeca xukuumaddan ka muuqda iyo xilkii ay iska saari lahayd amniga dalka in nin aan waxba gacan ugu jirin afar inaan intuu kolba soo diro in khalkhal lagu geliyo nabadgelyada waxa ka mas'uula xukuumadda kulmiye ee maanta ayaa ka mas'uula waana dhaliil ay leedahay xukuumaddu waxaan aaminsanahay in dadka reer Boorama ay yihiin dad nabadda jecel xilligii ninkaasi soo qaadayna gobolkan joogay habeenkii la ii bedelay 275 nin buu haystay ummadayadii baanu kala soo hadlay dawladdii iyo waa kala go'an iyo ummadii hadday tahay Boorame hadday tahay Saaxil hadday tahay Hargeysa iyo hadday tahay Laascaanood ama dalka gabahan hadday tahay Burcaba ama Ergaababa waxa weeyaan xukuumadda maanta dawladda kulmiye ka dhisanay dalka waxaad moodaa inaanay horena u joogi jirin maantana aanay hananin oo aad arkaysaan markhaatigeedii iyadoo maalin waxay ahayd maalintii Arbacadii maalintii gaariga maaliyadda lagu rasaaseeyay magaalada dusheeda waa nasiib darro runtii gaarigii custom-ku lahaa ee cashuurta ka shaqaynayay shalayto qoladaa hore rag baa isxilqaamay gobolka ka soo jeeda si wanaagsanna way u dhameeyeen xalayto iyadoo dad ashqaasi aanay ogolayn nabadda oo waliba ay magaalada gudaheeda joogaan ayaa haddana fal kale laga sameeyay magaalada wax laga dulqaadan kara maaha cid aan ku canaananaynaa kalena ma jirto waa xukuumadda dawladda kulmiye hadday booliiskeeda tahay hadday nabad sugideeda tahay waxaanaanu leenahay dalku ku jiri maayo sidan haddaydan hanan karaynin inaydin ummadii talada idin saartay ku soo celisaan ayaa waajib idinku ah waana runtii waxaa looga xumaado tan iyo meelo badan oo kale waxyaabaha ka dhacdhacaya ee dhagaheena soo gaadhaya warina riyaa miyuu dhex yahay Soomaaliland haddaanu niraano daadir kuma qaldanin muu ahayn golaha dhexe dee shalay buu ahaa golaha dhexe waa la wada og yahay wasiirnimadu ku soo galay waa kii shalay xukuumaddan jawaabayay waa kii shalay lahaa jabhad baan samaysanayaa haddii la saamaxo maxaa ka khuseeya waa dhinac waa cidna kala gaban mayno haddii ay xukuumaddu keentayna inuu isagu yiraahdo dhinac bay golaha dhexe ku jiro ama yaanu ku jirin maxaad ka difaacaysaa baa leeyahay gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye muxuu difaacayaa uu leeyahay wasiiradii wadani galay buu la miday de ninkani wadanina muu gelin u cudna muu gelin isagoo xisbigiina inuu noqdo commission ummadda u dhaxa ma dhici karta dhax maaha baan qabaa mowqifka iyaguna wuu cad yahay go'aanna waxa wada gaari doona labada xisbi hadday dhacdo inuu soo galo xisbiga kulmiye hadlay wuxuu sheegay inaanu gabi ahaan baanu golaha dhexe xisbiga aanu ku jirin labadiina xisbi mucaaradna waxaad sheegteen in aadan garsoor aanu ka noqon karin in soo xirdajintii inaad sugtaan oo inta iyagu waajibkooda ka qaadanayaan waa ogtiinoo hoggaanka kulmiye markaan kule waad garanaysaa ee maanta xukuumadda jirta ay ka dhisan tahay waxa loo doortay inay ilaaliso shuruucda iyo dastuurka dalka inay ilaaliso iyadii baa keentay oo lagu dhaliilaya yaa ku xadgudbay markaas aanu cidaanu leenay way ku xadgudubtay qawaaniintii dalka waa xukuumadda maanta ka dhisan kulmiye inuu yimaadaaba xaaraan ahayd baan ku leeyahay waayo xukuumadda madaxweynuhuna in badan buu inoo ballan qaaday inuu ilaalinayo shuruucda dalka inuu ilaalinayo de kitaab baaba gacanta loo saaray
nin calaamadaa xidhan oo meel fadhiya ayaa la soo sawiroo lagu celiyey عيدروس محمد أحمد تلفزيون عالمي أريال مقالة هرقيسة.